waxaan idinka codsanayaa fariintayda haddaad dhegaysataan inaad qalbiga ku qabatid dalkiina Soomaaliya oo aniga aad madaxtinimadiisa laygu aamino idinku igu aaminteen oo aad ii hambalyeynaysaa shacabkiisu waa dhiban yahay dalka abaaraa ka jira waxyaabo badan oo dhibaataa oo na haysto oo aan annaga sabab u nahay oon gacmehena ku abuuranaa jira laakiin abaaraha gacanneena kuma abuuranin qadar rabbiga ku yimaadeen isbeddelka cimiladaa keenay oo aanan annagu mas-uul ka ahayn laakiin maanta mushkiladda hadda annagayna haysataa dad badanoo Soomaaliyeed oo xoola dhaqata bas aha ayaa xoolihii waayey dhulkooduna aan dhul beereed ahayn kuwa badan oo beeraley ahaana roobabkiina way ka baaqdeen webiyadiina way qallaleen ma tacban karaan beerahooda kuwa labadaba isku ahaana kaba sii dara sidaas daraaddeed dadkeennu waa baahan yihiin abaarta geeska Afrika oo dhamay ka dhacday laakiin annagu waa u nugulnahay waxaan ugu nugulnahay duruufeena siyaasadeed nugeylka dowladdeena ay nugushahay ayaa sabab u ah waxaan idinka codsanayaa fariintayda haddaad dhegaysataan inaad qalbiga ku qabatid inuu jiro cunug Soomaaliyeed oo caawa aan cashaynin saaki aan quraacanin maanta duurka aan qadaynin berrina aan waxba meel u oolin waxaa qalbiga ku haydaa hooyada cunugaas dhashay oo ayadana sidaas si ka daran ah hooyada cunugaa dhashay iyo aabbihii dhalay oo arkaya cunugoodii oo sii tacbaanaya oo sii dhimanayo waxbana aanay u qaban karin rajo xumada iyo xanuunka waalidkaas ay qabi karaan qiyaas haddaa waalid tahay haddaad walaal tahay qiyaas gabadha yartaa iyo wiilka yarka ay kula dhashay hadday duruufahaas ku sugan yihiin walaalayaal waxaa idinka codsanayaa idinku baaqayaa idinku bogaadinayaa inaad dadkaas Soomaaliyeed ee duruufaha ay haystaan aad taageertaan garab istaagtaan ilaaha wax badbaadiya aad badbaadisaan $1 wax weyn oo ka tara Soomaaliya ama €1 wax weyn oo ka tara Soomaaliya €2 ka sii fiican 3 ka sii fiican